furmay bandhig sugaaneed loogu magac daray allaha u naxariistay halgamaagii weynaa suugaanyaankii xigmadiisa Soomaali intay dhaaftay daafaha dunida ay dhex mushaxtay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana bandhig sugaaneedkaasi loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah eheladii ugu dhawaa sayidka abwaanada waaweyn ee Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed madax dhaqameedyada culimo awdiinka haweenka Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhammaan hay'adaha Soomaalidu ay degto iyo waliba daafaha dunida taariikhda sayidku ma wax lagu dheeleeli karo qofkii ku dheeleelana horta annagaaba raadsanayna sayidku wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed midnimadooda iyo wadajirkooda iyo islaamnimadooda من آد يا آد سهل جميل أمر هو بدأ هي يجيب بحديث ده حرير له جماعة ماذا هي جل فراشيد بس كوتشر إنجليز ومسكع إذا كانوا أبدا أساتين كوتشرو بس هذه كرسارية شيء نين كم إذا وفت جوردن يا رابن بتبدل بودي يسكو بربري بدي مسكيده ساس بوجسو أساسا يسكو بربري دي كرد إسكا سعر بعض وحوها نين مشاهدة أو حنية عضاء أو قالي عوان كل وطن كهري ممكن كهري كانت وكجرو ما قيمين كرانت ولا بعض لكن مالنت وتجو أي وضع شعلنا أبوان أحمد فارح علي ذا شاء هذه آد أيوقي sidoo qayb galay haddii qofku wax qabto eedu wax qabadka la socota iska fadhi dhinaca ka sheegay waxa Axmed inuu kaalin mug leh afka iyo dhaqanka iyo suugaanta intaba ku soo kordhiyay waqti dheer geliyay akhyaartiina timaada haddaan ooda ka jiito meel awaara la seexsho oo awrka gool qalin waayo annaga axdiga iyo aaminkiiba furayna waxba Axmed Faarax Cali daa jaa maantiisa ku celcelin maayee nin baa la yiri maxaad u naaxi weyday sama jirto Axmed wuxuu yiri waxaan u naaxayn هذا كوفي لو جيت عيان دنيا جوجين هذا أو حنية عضاء أو قالي عوان كل وطن كهري دول كأنه كهري يقلب بحضة مركو ونانتي ونوم مقلن حيدو كينكي إن إرجع حسوستي ول marka hore waxa leeyahay soo garabkayga taagan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Cilmi Yusuf Cilmi oo iyaduna waxa ku sii xigta Sayid Maxamuud Sayid Cabdikariim Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa dhashii Sayid waxa leeyahay astaantii halganka waxa kaloo astaantii halganka waxa kaloo astaantii af Soomaaliga waxa kaloo astaantii diinta